عمر عرتن ضد شعب أو ديجله الصومالي ديجله أو استا لكن مدح ديجله ميزد مدح كسباير إيه كنت شو سأل هذا عمر عرتن سعلي مدحوين حس شيخ وحن له أمر صوصار أفر لا تسعة كو قبت هذيك نفتر كذا هذا أمر صوصار ويا ويل نقول أمر صوصار ولكن عمر عرتن نصيب درد وقبح يقعنتي نواي ما أنت هدي أدت اسكتوا من أهل هذا عمر عرتن مشوا وجاري لها ما أنت هدو جار أنا جا كسوعي ولكن سوى جارة كان يجي هذا دشنا وصباح أنا وجارة حريق كبدا حتى دونك يا سر رسمي أو شعبي إن عمر عرتن كرسورة صومالية سر رسمي أو سنة كان أقول باقي إنه قيب كان أخذ كرسوريا شيء ده حادين لها يراها كوبك دونك كدعية dalka Mareykanka kadib markii loo diiday gelitaanka dalka Mareykanka saraakiil u hadashay dawladda Mareykanka ayaa sheegay in Umar Artan kadib markii baaritaan lagu sameeyay ay soo baxday inuusan u qalmin gelitaanka Mareykanka warar kale aan la xaqiijin ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee Umar Artan looga celiyay inuu galo gudaha Mareykanka ay tahay sabab la xiriirta inuu sito baasaboorka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan qaadin talaabooyin lagu qanco shacabka magaalada Muqdisho ayaan la qaadnay mikrofoonka Himilo Somali TV sida ay u arkaan in garsooraha Soomaaliyeed laga celiyay inuu galo gudaha Mareykanka iyo talaabooyinka ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya waxayna ku jawaabeen sida dawladda Soomaaliya iyada isku mashquulsan wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada ciyaaraha iyada dusha loo saaraa maxay qabataa iyada muqdisho banooniyo badan ma lagu dheelo halka nin oo Soomaaliya oo dhan matalay oo sumcadeena iyo sharafteena iyo karaamadeena ay ku ilaasheen ay ku faaneen haddii Mareykanka laga soo celiyo dawladda kisbaayar waayno wasaaradana meesha waa iska joogtaa marka talaabooyinka ay dawladda qaaday say u aragtaa shacbaha mid loo baahnaa maxay tahay talaabooyinka mid niidata waa oo hoos u dhacsan ee kisbaayar waa talaabadaaba ee kisbaayar beeba dhacsantaa talaabada cusbeeneysii seerabtaa talaabana waxa laga filaynaa talaabo waxaa la rabay inay ku adkaysato ilaa FIFA eelaash ma jirto ee dhahdo Umar Artan wadana wadan Soomaaliya ka socda annaga hadii kale FIFA waa ka baxan dawladda macna talaabo ay qaadayso uma jeedo ninkaas kartidiisa annaga taageersan kartidiisa aqoontiisa maalinta Mareykan soo celiyana annaga safaaradda Mareykan laga roro waa dhigana isku yeelna waa sababtoo ah macna dawladana iyo dadana ma badhigi karno maanta dii Artan la soo celiyo oo baasaboor lagu soo celiyo oo Mareykanka taraamkii xumaa oo wasaqa ahay hadii oo waxaas ku soo dhaqaaqo soo celiyo annagana safaaradda Ameerikaanka hanaga guurto hadii kale waa baabaayna عمر عرتن وانين كرتله مانتا موقدو oo cadaaladnimo ay u doorteen FIFA iyada dooratay FIFA maanta Afrika oo dhan haday Afrika oo dhan way kala soo baxday Soomaaliya marka waxa waa ninkaas waxaan leeyahay hambalyo heerka uu gaarto oo hambaleena magac Soomaali maanta meesha uu gaaray haduu Trump soo celiyo anaga dhiigaan ugu jiro dawlad xadaa masuuliin anaga dawlad xadaa wallahi safaaradda Ameerikaanka dhagaxan ku dileynaa inta ku taala horta iyada inta ku taala xalana ma ku taala xalan naftirkeedan galeynaa ku raay mana ka yeeli doono haduu Artan soo celiyo Mareykan nooma joogaan anagana saxan ku gudaaliir saan ku gud ka shabahan talaabana ka filaysan dawladda inay qaado dawladda macna talaabo inay qaadayso ma u maleynaa bisayla tahay macna sababtoo ah macna Mareykanka waa ka baqdaaba war Mareykan ha ka baqinaan ku raay wadankan ka sar haduu Umar Artan soo celiyo madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay أمر صوصار أفر لا تسعة كوكب تعدي نفتر كذا هذا أمر صوصار ويا ويل نقول أمر صوصار أمر أمريكان كمعنا ودن كذي نكاس دو جلي وايو أمر وحن كسينا مدعوين حسن الشيخ إنه طلابك قاضي هذو طلابك قاضي وين أنا قاعد طلابك قاضي الأمريكان نيو هرتوا سود وين يا نيو نيك ولالك يا عمر عرتنا أدبان أروح معي نيدو لها رجدو لها يمشوا وصعد إيقابك وصل لكن آذان أروح معي مدة هذا كلا تهرت نيو مسؤول دروح كنت معها عرورت السيد بنا وحنا مسؤولك والدك هذه اسفهم ويانو عرورت قابك وح قربان أمهلي كرانو أنا وح ماشي أنا كان وحدة سياسيين أبوجو اسكو هسته ورمات معارضك وح وقيلنا يا وح معنا أهم واي محافظك وح وقيلنا وح معنا أهم واي نيكس تبع إنه قف أطول من وديدي ما أنت نيكس مسكين كا ولا كان مسؤول درد دت كان اسمينا أنت سنكون عرض ما أنت هذه كهلانو ومدة دنتو هذه كهلانو
anaga waxaan gaari leen horumarka horta waxaa loo gaaraa in la dadaalo in loo shaqeeyo in wax loo qabto in la isku turmo in garab la isku siiyo walaalkeena Umar Cartan nasiib darada wuxuu uga baxay gacantiina waay maanta hadii dad isku duuban ahaa lahaydeen Umar Cartan meeshuu u rabo gaari lahaa maanta haduu gaaro aniga ku soo ciga walaalkiis waa gaaraa kan iga yar hadda dhashana soo baxayna wuu gaaraa aad iyo aad aan ugu xumahay walaalkayga waan u soo duceynaynaa waxaan u rajeynaynaa oo ilaahay kaga baryaynaa guusha iyo hanka meeshuu u gaarsiisay inuu ilaahay gaarsiiyo xaqiiqatan horta waan dhawahay Himila TV waan ku dhawahay in maantay baasaboor Soomaaliyeed wata oo haddana rifri caalamiya in maanta la soo celsho la yiraahdo rejected la yiraahdo sabab amni darteed meesha waxa ka cad America inaysan Soomaaliya wax horumar aysan ka rabin Soomaaliya inay talaabo qaado inaysan ka rabin talaabooyinka dawladda qaadayna waa talaabooyin aad iyo aad dhinacna u fiican dhinaca ka xun laakiin waxaan rajaynayaa in hawsha ayada la dardargeliyo si rifrigaas positionka asaga mudna soo helo wasaaradda ciyaaraha warqad bay soo saartay dabcan marka talaabada ay qaatay waragta ma kii loo baahnaa ma mid ka yaray baa intii loo baahnaa talaabada wasaaradda sports ay qaaday intii loo baahnaa waxba ka dhim saas aan u aaminsanahay waxba ka dhim